laayahay wuxuu raadinayaa biyo uu cabo oo uu haraadsan yahay. Meesha uu joogana wax biyo ugama jeedo. Marka si uu wareegayay ayuu wuxuu soo baxsaday durbiri wuxuu ku fiirsaday si uu wax u helo geed qumba ah. Wuxuuna aasaday geedkii qumbaha. Markii uu dul tagay geedkii ayuu wuxuu waayay fikrad uu kula soo degi karo maxaa waaye qumbahan si uu qumbaha biyihiisa u cabo maadaama uu haraad u hayo. Ninkii geedkii ayuu jiljilay balse tabar ma lahan, ma uusan jiljili karin. Wuxuu isku dayay inuu geedka fuulo si uu soo qabsado qumbahan oo u soo degsado markii uu fuulo u dhawaaday inuu soo qabsado ayaa waxaa qaniintay ama cuntay caaro. Markii uu soo degay uu geedkii ka soo dhacay ayuu wuxuu raadiyay fikrad kale uu ku fuuli lahaa geedka maadaama sidii hore u suurtageli weysay uu ka soo dhacay oo marlaadna uusan ku laaban karin. Wuxuu isku dayay inuu dhagaxan qaado si uu u gaaro geedka. Ninkii waa kana waxa uu rabaa inuu gaaro geedka. Wuxuu yimid alwaaxii uu ku dul tagi lahaa wuxuuna ku dhuftay dhagax ayuu gees kale u dhuftay. Ninkii ma uusan gaarin geedkii sidii haddana waa uu soo dhacay. Markii uu soo dhacay ayuu wuxuu la yimaaday fikrad kale. Uu ka cararay balse weli ma uusan ku quusan. Geedkii waa uu soo laabtay, waa uu yimid si uu haddana geedkii u fuulo. Ma uusan quusan. Wuxuu fiiriyay geedkii si uu la soo degi lahaa. Weli wuxuu ku jiraa falkeedii geedkan si uu la soo degi lahaa. meesha marmaraba waa uu fikiray kusoo dhacday fikradda inuu uu dhulka ugu soo dhaco balse nasiib xumo uu soo dhici weyso isagoo iska niyadjabay ayuu wuxuu hoos fadhiistay geedkii markuu daalnaa waxaa kusoo dhacay